السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada walaalayaal waa Maxamed oo idin leh mar kaleeto kusoo dhawaada kanaalka Quantum Crypto. kanaalka haddii aad ku cusub tahay waxaan ku leeyahay soo dhawow. haddii aad horay u maatay kanaalkan aad horay u aragtayna waxaan ku leeyahay kulantiina wacan. marka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo wax aan soo arkay oo iga yaabiyay wadankan Sweden aan joogo aan ku soo arkay. waxaan soo arkay 12 sano 13 sano meelahaas wadankan jooga waxa markii ugu horeysay soo arka maalmo yar ka hor wax iga yaabiyay waa idin sheegi doonaa. horta aadin laho kusoo dhawaada kanaalkan. horta kulli ahaan wuxuu ku saabsan yahay crypto, waxa loo yaqaan cryptaha, waxa loo yaqaan blockchain, waxa loo yaqaan NFT yaasha, waxa loo yaqaan suuqa kala iibsiga oo caadiga ah, waxa loo yaqaan stock marketka, wax walbo iyo waxyaabaha ka dhacaya dunida oo ku saabsan dhaqaalaha badankood, dhaqaalaha dagaalada ka dhacay hadda Ukraine oo kaleeto oo aan video kale uga hadlay. videogaas daarto waa kanaalka ka soo fiiri. marka waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo waxaan iga yaabiyay waxaan wadankan aan joogo 13 sano ku dhawaadka waxa aan wadankan Sweden ku arkay oo markii ugu horeysay aan arkay waxa waaye in qofka wadankan degan oo shaqeeyo oo canshuur dhiibo wuxuu sameeyaa oo bila kaniisadda wadanka ku taalo Sweden. kaniisadda ugu weyn lacag loo shubaa bil walba adigoona ogeyn anigoona ogeyn. haddaa wadanka Sweden degan tahay soo fiiri wax aan ku sheegayo run miya mise waa been. soo fiiri. ilaahay idinku dhaariyay waxaas wax laga damqada soo maaha. aniga markaan waxaan arkay crypto xaggaa dhigay maanta waxaan ka hadlaa waxaan dhacayo anagoona ogeyn horteena ka dhacayo aan wadankan aan joogno kaniisadiisa aan biilano. kaniisadda oo gaalada ay leeyihiin aan dhisnaa. kaniisadaha la dhisaayo lacagta laga dhisaayo shacabka lacagta laga qaada waayo. ilaahay idinku dhaariyay sidii noola duleysanahay ka waran. waxaa ka daran wax walbo haddii aad ogaan lahayd haddaa ogaan lahay wax fiican ma ahleeno wax aad dhiibaysid waxa waayaba wax aadan ogeyn canshuurta laga qaadayo ee ku jirtaaba. ka sheekay haddii canshuur laga qaadayo adigna aan ogeyn wax aad lacagta ku dhiibaysid. canshuurta waa garanay, canshuurta caadiga ahayd waa garanay wadanka aan ka shaqeyno canshuur nagu leeyahay waa la gartay taas. canshuurtii laga qaadayay marka canshuurta laga qaadayo markaa heshid mushaar waxaa la arkaa wax specification ah oo warqad ah oo la arkayo mushaarka ah heshay inta oo percent oo kamid ah oo laga qaaday canshuur wax walbo oo dhacay mushaarkaas laga gooyay lacag laga gooyay wax laga gooyay meesha ka arkaysa. waxa arkaysa waliba mushaarkaagi ugu horeeyay ah heshay waxa ku arkaysa meesha waxa oo ahay ee wixii laga jaray. okay marka kaniisadan aan biileeno intee ka timi waxaan soo ogaaday baaris kadib. waa maqlay marka hore sheekadan qof ka maqlay oo aamin waay macquul in noqoysay waa baxay oo baarisa galay. marka isbuucan hadda oo bilaabanayo bilowgiisa aan soo ogaado kadibna baarista aan galay waxay soo tustay in kaniisadii lacag naga qaadato bil walbo adiga inta aad shaqeynaysid noloshaada inta pensionka ka gaaraysid lacag ay kugu leedahay lacag ay ka qaadaabo. marka su'aasha ugu weyn waxay ka taagan tahay wax adiga aad u taliso oo ka bixi karta miya mise waa wax qasab kugu ah waay. aan ka hadalno horta markaa gelisid adiga isma gelino adiga intaad tagtay kaniisada ma dhihin moogtahay kaniisada aan kusoo biiro. dhibku wuxuu ka yimid markii ugu horeysay kaniisada markaa wadanka timaadid ajnabi tahay automatic waxaa lagugu daraa kaniisada meesha aad degan tahay magaalada aad degan tahay kaniisadeeda automatic lagugu daraa. marka dhibka meesha ka bilaabana horta marka anagu wadankan waxaa timid wax ogeyn luqada aqaanin nolol fiican oo timid Soomaa waayahay haddii ka waran automatic kaniisada lagugu darayo diintaada qof kale ma jeclo. haddaa gaal tahay ama yahuud ahaa ama muslim ahaa wax harta ahaa qof kale jecel male waa lagugu daraa automatic kaniisada. waxa dhibka ka jira idin sheega marka gaaladii dhaladka ahaa oo wadankan Sweden u dhashay automatic lagu madaro kaniisada. ayaga doortaan haday rabaan inay kaniisada galaan iyo hadii kale.
ayaga doortaan markay ilmahooda u dhashaan inay kaniisada geeyaan inay rabaan iyo in kaleeto. Automatic kaniisada ma loogu daro Swedishka wadanka u dhasheen waaya looguma daro. Automatic ma loogu daro, laakiin adiga hadaa wadanka timaahid ajaanib aad tahay automatic waxaa loogu daraa kaniisada. Wadanka meesha ka degan tahay kaniisada u taliso aa lagugu daraa automatic. Waxaas soo wax laga damqada maaha. Aniga markaa arkay waxaas waxaan dhahay kripto xagga iyo dhig walaalaha Soomaalida aan u sheekeeyay. Aniga hadii adiga aan waxa ku leeyahay aad ogeed waxaan wadankana aad degan tahay, waxa waaye in aad noo sheegto oo dhahdo war kaniisada lacag niga qaadatay la socda oo kaniisadan ka bax. Aniga waxaan idin leeyahay aan kacno indhaha la kala furo. Kaniisada lacagta inaga qaadanaysana waa wax la dooran karo oo laga bixi karo. Marka aan idin sheeg si looga bixi karo. Horta hore bixitaanka kaniisada ma sahlano. Dhibku wuxuu ka yimid kaniisada marka rabto inaad ka baxdo ina website gasho ma ka bixi kartid. waxyaabaha kale ka soo qaad marka dalbato wax internet ka dalbato ama marka wax saxiixayso kaleeto waxa lagu saxiixaa wax loo yaqaan bank ID. waa marka system oo saxiixa lagu garanaa in adiga tahay mogta. wadankan kaniisada malaayiin dollar ay qaadataa bishi ee dadka ka qaada shacabka. Okay, sidee u lahaaweysay wax looga baxo adigoo gurigaaga fadhiyo mobilkaaga ka geysto ama ka geysto computerkaaga. ilaahay idin ku dhaarshay ka waran waxa ka daran waxaas dhan ka siisin marka aad ka bixisid waxa waa inaad gashid page-ka internetka ko kadibna aad raadis gashid oo raadis aad u gashid waxa meesha aad bixi lahayd. waxa jiro waqti la buuxinayo warqadaas inaad buuxisaa u baahan tahay mogta. sababtoo ah laba alternative kala jirto. hadaa warqadaas aad gashid internetka aad buuxinaynin arabtid si kale inaad uga baxdid waxa uga bixi kartaa laba siyaabo kaleeto. siyaabooyinka midkood waxa waaye kaniisada inaad tagto horto. kaniisadii ninkii kaniisada u talinayay priestiga ahaa u tagtid waa koow. aad toos u laadashaa dhahay saaxiib inaa ka baxaa raba kaniisada. wala inaan kaniisada intaa tago hor istaagaynin priest wala inaan sameynaynin. lambar 2 waxa waaye in aad gurigaaga adoo joogo ama meel aad tagtid aad warqad soo print gareysid, warqad aad buuxisid, aad warqada saxiixid gacantaada ku saxiixid aad dirtid. waxay u sameeyeen warqada aad soo bixisid aad saxiixaysid waxa looga dhigay in la adkeeyo bis ka bixitaanka. sababtoo waa la ogyahay maanta technology-ga waqtiga lagu jiro qof raba ma leh in uu ka baxo ama oo sameeyo wax oo warqad la sameynayo. dadka badan waxay jecel yihiin marka inay iska sameeyaan internetka inay galaan kaliya siinayaan waa dhamaatay mogta sheekada. meeshan sheekada saas kuma dhamaanin ba. sheekada meeshan waxay ku socotaa in warqadii la soo bixiyo ko qof guriga printer u yaal ma jiro. waa dhif qof xafiis gurigiis oo soo ahayn oo printer u yaal waa dhif mogta. ninkii haysto printer waa iska fiican yahay laakiin aniga been ma sheegay printer guriga email. marka waxa waa inaad tagtid library magaalada kale tusaale ahaan inaad printing meeshaas yaal oo soo baxsid waa lacag laga qaada ka horto. warqadaas lacag ku soo bixinaysa bogta kadibna marka warqada soo bixisid aad buuxisid waa saxiixaysa warqada. marka saxiixdina waxa diray warqada lacag kale ta ka baxda mogta. soo kaniisada ka bixitaankeeda lacag ay joogtaa mogta. si fudud ma bixi kartid waa mogta. ka bixitaanka marka warqada la buuxinayo iskaal ma aha ma sahlan in la helo. أنا waxay ugu qaatay 30 daqiiqo camal inaan helo warqad bis warqadaas lagu buuxinayo inaan helo bis. alternative kala jiro aniga wasaas sameeyo waxaan galay internetka email-kooda helay horta waxa helay meesha ku qoranahay magaceeda email-kooda galay email aan helay waa u diray emailki waxa u qoray magacayga waxa u diraysaa lagu leeyahay magacaaga waxa lagu waxa la number leenahay oo wadanka marka degan tahay wadamada Yurub dhan weeyeen ama leena social number ama number lagu yaqaan waa lambarkaagaas u qoraysaa. aniga lambarkayga ma u qoran waxaan dhahay maqla magacayga u qoray waxa siiyay addresskayga waxaan dhahay inaad kaniisada ka baxaa rabaa saas la socda. marka kaniisadaas ma bixi kartid warqad inay soo diraan warqad waxa u dirtid warqada ay soo print gareynayaan way soo dirayaan warqada ku soo dirayaan gurigaaga waxay ku leeyihiin gacan ku soo saxiix qalinkaaga oo original laga rabaa in saxiix. marka ana waxa soo sameeyay maxaa soo bixinaa warqad lacag maxaa u gelinaa maxaa warkaas gelinaa ayaga ku soo bixinaa marka diraayo dhow warqada celinayo lacag jooga mugta hadda warqadii laad miimaan waxa kale dib ka jira marka wadanka madan ma ogi wadamada kale to Sweden deganaa Sweden ka hadli karaa mugta marka waxa dalbatida ka soo qaad
ama dhar ka dalbo internetka ama koba ka dalbo ama telefoon ka dalbo wax xarad ka dalbo waxa waaye haddii wadanka gudihiisa ay tahay within 3 up to 5 days ya 3 ilaa 5 maalmood gudahood warqadaas ama waxa dalbata adhe dharka iyo makobihi wax rabaadan way ku imaanayaan gurigaaga 5 bil gudahood okay aniga hadda waa dalbaday way iga maqan tahay wali waa arkina waqtiga ay timaado laakiin waqtiga qaadanay soo ma bobsinaya may fudeedkaas ma jiro sababtoo waxa tahay qof muslim ah oo la fahansan yahay kaniisada inaad ka baxdo rabto mugta indaha soo kala furata mugta laguma og sababtoo ah dad wadankan u dhashaa jiro oo kaniisada waqti hore markii sharcigan hadda yimid oo qofka asigoo ogeyn lagu dari karin kaniisada laakiin qofka ajnabiga ah asigoo ogeyn lagu dari karaa difference u dhaxeeya waa kaasa gaalka wadanka u dhashay laguma darayo automatic asigoo ogeyn laguma dari karo sharciga diidayo laakiin wadanka hadda timaado adoo ajnabi ah automatic lagu dara lacagan laga qaada man ogid kaniisada biilosa marka maalooda waxa ka akhriya marka Paris sameynay journalka waxaan ku arkay journal mar hore qoray qoraal lagu soo qoray journalka waxa ku qoran oday duq ah oo 70 milyan mal jiray wuxuu leeyahay Swedish wuxuu leeyahay Svensson caadi wuxuu leeyahay ugu badnaan ugu yaraan adhe $30,000 aan laga qaaday asigoona ogeyn kasoo bilow maalinta shaqo bilaabay 18 jir marka taa shaqo adigoo oo canshuur laga qaaday weyn bilaabi kartaa 16 jir waa shaqay kartaa canshuur yar laga qaadaa iska dheh 16 jir ku bilaabay shaqo dheh ilaa oo ka gaaray 65 sano meesha wadan 65 sano lagu noqdaa patient little waxa laga yaabaa in airline noqotid laakiin caadiyan 65 waaye hadda way ku soo doorayaan 66 67 si dhigaan waa si dheereynayaan sababta waxa loo si dheereynayaan waxa waaye dadka wadanka waxa la dhahay cimrigiina dheeraanayo waa si duqoobo siino ma dhimano simba Soomaaliya ka warama waxa la joogaa ma dhimano siine waqtiga oo shaqeynaysiin dheereynana sababtoo ah wadanka lacag ka dhimano siin dadka jiifo waa mugta oo duqoobayaan oo pension kan qanayaan soo waqtiga pension la sii sikinayaa 66 laga dhigoyaa 67 laga sii dhigoyaa 70 la sii socdaa waa la sii fogeynaya marka waxa waaye ani maanta waxaan ka hadlayo ila ark Soomaaliya ila ark aniga crypto ka hadlay laakiin waxaan ma dhaafi kari saadin sheega waxa waaye wax walbo oo uu soo cusboonaado asleeya walaalaha la qaybso walaalaha oo sheekay ha ogaadaan waa soo dhaweynaa waa idin soo sheega hadii ay sheeko hadii ay wax oo cusub asleeda war waxaan niyo Soomaalida kale taa ogaadaan hadii adiga kanal lahayn ani isoo gudbi ana soo saaraa internet ana soo gelina YouTube ana soo gudbina hadda asleedihiin waxaan hala saaro halaga hadlo waa ka soo hadlaa laakiin igala hadla oo igala warama arinta comment ka baxsha videoga hadii aad aragteen waxaas hore u aragteen ama hadii idinku cusub yihiin iyo waxa ka dareemaysiin hadda wadan kala degantihiin waxa idinku dhiirigelinaa dadkiina degan wadan kaleeto waxa idinku dhiirigelinaa inaad soo fiirisiin wadankiina deganaaw America deganaaw Ingiriiska deganaaw Australia meesha deganaato soo ogaaw ma laga qaadaa canshuur aad ogeyn kuma qorna meel automatic lacagta laga qaado canshuurta ah anaga wadanka Sweden automatic ku jirta ma ogid way ku darsan tahay bis ma ogid qof ma ku sheegay aniga marka sheekadan aan kasoo gubtay marka arka waxaan dhahay balaay idinku dhacday warniyow aniga waxa shaqeynaa intaanu sano wax badan ma shaqeynayni hadii la barbar dhigo dadka oo shaqeeyeen 40 sano 50 sano ana wax badan ma shaqeynin halaan aan shaqeeyay canshuurta laga qaada xanuun ugu dilos oo la siiyay kaniisada sababtoo ah kaniisada waa la dhisaa kaniisada asaan la yeelaa kaniisada war waxa lagu dab socdaa bariis lagu dab socdaa sheekh war aan muslimna ah may qofkaan ma jeclo automatic lagu gelnaa wallahi ilaahay ilo waxaan soo arkay markaan akhrinay automatic in isku gelinayo wallahi yaa ku dhahay ereyada isticmaalayaan waa ereyo culculus si dadka cusub ay u fahmin wax ay akhrinayaan hadii xataa isku dayid ina wadanka soo baaris agashid luqadda ay ku qoran tahay oo lagu qorayo waa luqad adag dad hore wadanka u jooga bis ama dad luqadda ku dheereeyo wadanka fahmi karo laakiin qof cusub wadanka ama jooga 3 sano ama 5 sano war 10 sano joog wadanka xataa way kugu adkaanay ereygaas way kugu adkaanay ereyadaas ku soo baaris ka waran si u adkeynayaan duleeskaas ka waran si u adkeynayaan in laga baxo kaniisada ka waran nal raaji'un ilaahu hana duleen war aniga waa ka soo horjeeda waxaas kaniisada waa ka dalbada ina ka baxo jawaabteeda ma warqadeeda ma dhamaanay warqada way socotaa ilaahay jooge
waxaas ka warama wadanka aad joogtid nolol fiican lagu siinaa laakiin adina qasab kaniisada lagu gelina kaniisada biile hadda shaqo bilaawid ma ogid waxaa kaloo ka daran ilmaha aad dhashay ay ku jiraan kaniisada familka dhan kaniisada ku jiro ma ogid wadanka aad degan tahay Sweden aad degan tahay ilmaha dhashay cunug ku dhashay wax dhan automatic waa ku jirtiin familka yimaado ala cunug loogu dara kaniisada waa ka registersan kaniisada magaalada degan tahay kaniisada ku dhaw registersan tahay waxa way dhibka keenay waxaan waxa way ogaanshaheena aan ogaanin anaga ogaanin ma kartid wadanka ma degan tahay wadanka maalintan soo degneed ma ogaa kartid waxa way wadankan way samaysteen dadkan systemkaas la haystaa mugto soo adin ogaa kartid waxaas dhan wax kama ogid waa iska socotaa biilkaaga iska samaysane mushaarkaaga soo qaadanaysa waxa waa alyomkaaga isaga noosha waxa way mushaarkaaga soo qaadatid dhac biilasha isaga dhiibaysa wax laga rabo iska dhiibaysa ewela ogen anaga renta lagu daba kacay mugta rento xaraan ah lagu daba kacay waa ogen laakiin waa ka dagaalami karnaa mugta rentada tan ka dagaalnaaday waxaadan ogen ka dagaalnaaday waa laga yaabaa inay jiraan waxyaabo kale canshuurta laga qaado ay galaan waa soo ogaan doonaa laakiin hadda baaris fiican aan galay indhaha u kala furnooya meeshan waa fiirinooya laakiin waxaan ila arkay ko waxa idin leeyahay Soomaalida joogto qurbaha dhan fiirsha oo wadanka aad joogtiin canshuurta aad dhiibtid kaniisada ma ku jirta waa masaajidkii Soomaalida waxa taagan yahay badana war masaajidka wax ka sii war masaajidadii la xirin masaajidka bishi laga rabo ijaarka laga rabo wax laga dhiibo la isku bariyaa meeshaan waxaan noo yimid saaxib kaniisada lacag siinuna anaga ogeyn kaniisada biiluna saaxib meeshaas ku daldaloosa man ogid horta ilaahayna cafiyo waxaan ogeyn ilaahay naga cafiyo dambigeena dhamaan ilaahay dhaf imr dheeraad cibaado suban dhamaanteen Allah na siiyo jannada firdawsana Allah nagu wada kulansiiyo nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam jannada firdawso Allah nagu wada kulansiiyo insha Allah ta'ala aamin waxaan leeyahay ilaahu naga cafi ilaahu naga cafi dambiyadan angal anagoon ogeyn kaniisada aan biilon aan ogeyn gaalan dhagray ilaahu naga cafi ilaahu iga cafi ya dadkii oo hore ogaynay waa fiicantiin hadaba ka baxneen alxamdulillah ilaahay idin gargaari aniga gargaarka dad yimid waxa way waa lagu kala horeeyaa gargaarka u jeedin anigana gargaarka waxa ugu balan ah ina meeshan soo saaray Soomaalida aan arkan aan gaarsiyo aan dhaho war ma ogeed ina dhibto Soomaalida kaliya ma ajaanib kale ka joogto wadankan oo muslimiin wadamo kale ka yimideen Iraq ka yimaadaan wadanka rabaan ka yimaadaan inta degan ayaga lafkooda war ma hayaan saa u arkay hadalkaas ani saa u soo ogaaday ma qof aan weydiiyay mamlay kartid war adiga kaniisada lacag ka qaata miska bixis ma soo ogtahay waa weydiiyaa wallah ma kala jecay wadanka doo qofka joogay 20 sano ama 25 sano joogo waa weydiina waxa leeyahay maqal wadanka canshuur ka qaatay canshuurta ka qaato kaniisada lacag qaata ku jirtay ma ogtaa misma ogin hadaa ogin iska fiir sarta meesha lama ogaa karo qofka wadanka marka doo 5 sano joogo ma ogaa karo waxaas yaa ku sheegay qof inagu kala furay male ilma ka qaadasho dhac diyaar waa dadka wax walba diyaar waa hadii ilmaha ay arkaan cunuga miis ma u yaala miis oo wax ku kursi sawir ma u yaala haduu aalan dhac waa maanaan waa dafayaan waxay rabaan inay qaadaan duurka geliyaan wax kaliya rabaan taas waa mugta gaal u geenayaan familka laga la geena been la sheegay horta cunuga cunto way siinayaan caloosha u buuxinayaan laakiin diinti ilaaha ugu meesha ka baxayso qof walba diintiisa ay ilaahay ka dhaxaysa qof diintiisa ma fargashanayo laakiin waxa ay leeyahay iska fiirsha waxaan dhacayo oo wadanka aad degan tahay hadii la sameeyo san lagu sameeyo iska soo fiiri aniga ma ogeyn ilaahay la og ma ogeyn man iska fiirin ma ogeyn aniga waxa u maleeyaa canshuur mugta warqadaas ku qoran taxas leeyahay wax walba laga qaado details meeshan ku qoran ma baahan inaa fiiri war ma ku qorno details waxa ku qoran bis canshuur ma ogid aniga ma ogeyn hadda soo ogaado qof ka maqlay sheeka umalina waa kafta musaagata war wallahi billahi waxa la dhahay warun ilaahay idinku dharshay kabran waxaas marka soo ogaadana warun qalbiga qaacida wallahi crypto aniga waa ka hadlaa hadda waxa ka hadlaa wax walbo oo soo cusboonaadana balan aniga qaad inaan ka hadlo cryptana waa wada inaan ka hadlo crypto iyo blockchain saayidii sheegay hore inuu ku sheegay waa mustaqbalka dunida waxa way wadan walbo dawlad walbo
oo Europe-tan kamid ah America ahaato la dagaalan weyn ay ku wadaan crypto waqti waxa la waxda marka hore wax la timaadid marka koowaad waa lagu ignore gareena waa iska dhigeysanaa oo maxaa la leeyahay naga tag wax ma yisid marka waxa la bilaabaa marka lagu arko inaa horumar sameynaysid ama inaa hadii lagu arko wax oo dhab ah waxa la bilaabaa in lagu dhaho hay waa lagu la dagaalamaa inta socotay hadda America maalin walba oo ku dhawaad waxa fadhiyaan dawladda baarlamaankooda waxay ka hadlayaan crypto dad badan crypto wala dagaalamayaan qaarna crypto la jiraan qaarna crypto ka soo horjeedaan la dagaalanka ka socda dawladaha sababtoo ah bangiyada adduunyada ay gadinay crypto waxay bilowday inay bangiyada gadiso bangi ma baahnid hadda crypto haysatid bangi ma baahnid dhibka jiro oo ayaga baabi inuu ka baqoyaan waa taas ka waran system bangi system oo shaqeynaya intaas soo boqolaalo oo sano ya oo hadda riski galay waxa riski gelinayna waa crypto lacagtaada adiga haysatid ma oga bangi waxa ku sameynaysid ma oga dawladda waxa ku sameynaysid lacagtaada ninkii bangiga ahay oo biil ka qaadi jiray marka wax diraysid ama lacag aad sameynaysan ama wax aad diraysid xawaaladaha ka qaado xorba ka qaado western ka qaado waxa bay ka qaadayeen lacag kama helayaan ka wanaad sababtoo ah crypto haysata lacag kama helayaan beerka xanuunada dadka waa la isku dhaxyaacaya waxa waaye crypto for me aniga ahaan waa number 1 waliyan number 1 yaanaysa waxa waaye 10 sano 5 sano waqtiga ahaataba waa la sugaa waa la arkaa marka aniga ujeedadeeda aniga ahaan waxa waaye anigoo jiifo in lacag soo dhacdo ya lacag passive income ah la sameeyo waa ujeedada qof walba oo maanta ka cusub wax walba oo irsaaqadiisa raadsanayo oo cararayo oo rootigiisa u cararayo waxa loo cararayaa in lacag la helo lagu badbaado cunto lagu gato cunto lagu cuno lagu biisho family ijaar la isaga dhiibo ilaahay ha wada foodo dhamaanteena laakiin waxa ay sheega Bill Gates dadka loo yaqaan iyo Elon Musk iyo Jeff Bezos dadka oo sameeyeen Tesla iyo Microsoft dadkaas ayagoo jiifaan second ala second milyan dollar oo dhacay jeebkooda ayagoo iska jiif habeenkii hadoo seexdo hadoo jiifto 8 saacadood markuu soo kaco ninkii lacagtiisa milyan dollar kor u kacday ujeedada aan leenahay waa taas hada anagoo jiifno lacagteena kor u kacayso waa ku guuleysan ujeedada waxa marka inaa shaqeysano maalinta koowaad inta ka gaarino horumar dadkan way hore soo shaqeeyaan dadkan ujeedada malaayiinta haystaan way soo shaqeeyaan maalin walba ka jireen dadka qaarkood ma bisi xajirin habeeno shaqay ku jireen si ay u gaaraan goolkooda iyo ujeedooyinkooda iyo guul marka guushaan sa u gaarno waxa waaye in horta waxa asal jecelnahay walaalkeen ala jeclaana marka hore waa in horumarka la wada wadaago marka horumarka in wada wadaagno aniga diyaar ah wahay waana soo gudbina wax walba arko oo cusub marka crypto waxay leedahay janis aku gaartid horumarkaas aad raadinaysid adiguna bangi u baahneen adiguna dawlad u baahneen marka faa'iidada crypto laga sameeyo fadhi ku dir iska dhaaf ya horumarka fiiri waxa waay mugtahay aniga waxa cabsid ugu weyn waxa waay iska dhalo qangaar shaqay dad u shaqay waxa waay guurso ilma dhal kadibna adigoon wax samaysanin oo kale dheeraad ah iska soo sax sababtoo ah milyan dollar ma haysatid mugto hore u soconay aniga waxa waay ujeedadeeda in horumar aan gaaro bit crypto ka ahaado bitcoin ahaado wax walba oo janis oo jiro in la sameeyo sababtoo ah waxa waay dad waxa jira mugtahay marna waxa leeyahay boss oo waxa leedahay adaab meesha u talisid oo dukaanka Allah ama ganacsiga madaxa ka tahay waa diga iskale ama waxa tahay qofkii u shaqeynay bosska marka ilaahna wada fududeeyo qof walba meesha dunida maanta ka joogo iyo meel walba amalkiisa iyo risqigiisa ilaahay oo ku daray Allah nooga wada fududeeyo dhamaanteen laakiin waxa leeyahay aska soo fiirino wadamada gaalada dadka joogo aska fiirno wuxuu wadanka aan joogno oo sameeynayo anigoona ogeyn tartiib tubo lagu sii tartiib laga qaadanayo waxba adigoona ogeyn marka ka soo qaad aniga
maanta haddii aan go'aansado in aan ka aamuso, haddaan go'aansado ka aamuso, aan go'aansan lahay maba laga yaabo inaan go'aansado, ma dhacdo. Kasoo qaad haddaan ogaan lahayn waxaan ay iga qaadayaan kaniisadda, haddii aanan ogaan lahayn maanta, haddii aan shaqeyn lahay maalinta 60 iyo xoogaa gaaro wayse kiyandaad oo lagu shaqeynayo mugta, sababtoo ah dadka ma dhimanayaan ay taagan yihiin mugta, waa la sii duqoobaya taagan yihiin. Marka kasoo qaad 70 la marayo, marka 70 la marayo waxaa gaaray pension. kasoo qaad haddaanan ogaan lahayn lacagtan aan dhiibayo hadda bil walbo markaa pensionka gaaro ugu yaraan 20,000 oo dollar waxaa iga qaadan lahay kaniisadda, adiguna ogeyn anoona ogeyn kaniisadda way wada lahayd lacagtaas 20,000 oo dollar. dadka qaar kore u dhaaftay saa inay sheegay nin kaas ka aqriyay journalka oo kaleeto 30,000 oo dollar saas u dhaaftay. marka ilaahay naga baxsho Soomaali Maxamed, soo dhawaada crypto aan ka hadla marka dambe. waxaa laga yaabaa crypto kuma ekaan doon, laakiin waxyaabahan kale markay soo baxaan waa soo gudbinaa, ballan adinka qaada waa soo gudbinaa, kama fadhiisanayo. lagama yaabo inaan ka fadhiisto waxyaabahan kale marka arko, lagama yaabo. marka hadduu ilaahay raado ila socda, kanaalka subscribe dheh, share garay videogan aan soo saaro hadda kaleeto, share garay dad kaleeto aan ogeyn ha arkaan, waxa ka arkaan ha fiirsadaan, like dheh, gambaleelkan ku dhufo si aa ula socotay markaan video soo geliyo. saa idin sheegay horeen kugu sheegay jimco walba video soo geli doona insha Allah taala. marka wabillahi tawfiiq, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.